السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مدة الصومالية ميل كستي جوغان وان سلامي سلام كدب. إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. ربي سبحانه وتعالى هؤلاء حريستو أدر جامع كلية. ربي سبحانه وتعالى قبري جسها واسعيه. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس ميديكتا كسيو. ربي سبحانه وتعالى أبريا تعسين وان أدريا دمان مدة الصوماليات خاصة رير خاتمة أيان أدريا تعسين إن إلهي سبحانه وتعالى أدر أبوان كجامع كدية علمي وإلهي سبحانه وتعالى سمري ما ينقصيه أدبن وقرنا حي ما أنت جريد على السوشيال جريدو ويكلا كلوشة وينكلا حنت هاي إن إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته أبوان كس أبوان صوماليات بوها أبوان أمد الصوماليات وسمينهم بوها أبوان كل أنت صومالي نمد أيوها لكن ما أنت إن halkii looga dagaalamayay calankii buluuga ah looga dagaalamayay Soomaalinimada ayuu ku geeriyooday horta nasiib wanaag maanta inuu la sacaanood oo xor arkay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta hartay uu dhameyn doonaa insha Allah khayrku ku dhamaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta la soo kulmay iyadoo waxyaabaha qaar laga baxay laakiin geeridaas maanta geeri iiga naxdin badan wallahi billahi tallahi inaan arkin aad iyo aad baan uga naxay in abwaanka maanta meesha lagu dilay iyo dadka kale lilaahi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto runtii shaqan ku jiray war umaan hayn laakiin marka baa la kulmay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto qabrigiisana waa sayra reer khaatumo waxaad sugaysaan iyo waxaad doorataan ma garanayo wallahi billahi ma garanayo waxa Allah wax la sugayo ma fahansani arrintaas hore waxa loo yidhi nin qoyan biyo iskama dhowra waxa weeye meel xun bay markii horeba taagneed arrintu haddana waxa loo dhameystirlaaya ma garanayo kolley ummad Soomaaliyeed dagaalkooda ciidina kuma farxayso laakiin ninka xaqdara kugu yimaado gurigaaga iyo maalkaaga aad kala baxsan laadahay naftaada inaad ka badbaadiso xaq weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin fahansiiyo halka aad taagan tihiin cidna inaad sugtaan ma aha cidna inaad ka war sugtaan ma aha idinka isku filan reer khaatumo dhamaantiinba waad ku fulantihiin inta deegaanka wada dego oo dhan haday noqoto dhubahanta haday noqoto fiqashini haday noqoto madhibaan haday noqoto tumaal waad ku fulantihiin waana ka soo bixi kartaan hadii Ilaahay yiraahdo khaasatan waxaan aad ula hadlayaa dhulbahanta waad arkaysaan waxa dhacaya dhowr bilood ka hor baana dagaal kala bilaabay ilaa haddana wali waxa la faanoole farka ma qodna marka ma garanayo waxa la sugayo hadii Ilaahay yiraahdo ummad قدرك وقتمي قفنا حق درها كدلنا لكن نيك حق درك وقيمة إنها تكتب في عاد حق بعض الله هاي قرت مركب وروح عن الله كبر إله سبحانه وتعالى ومدك لقبوتشي ملك استيشوجان نيك قدرنا إنه إلهي قبطه من الله على نيك حق درك وسعد وقف بين آدم يليجيس حلاشنا يا إلهي ومدها كقبط ربي سبحانه وتعالى وبريا إن رنتي وحن كهلا ما قرنا يمالا كهلا ما قرنا يوايو جيري شوكته لوجرا وهذا دمان السبع اللي يري دريرك ولا سكدوا هيركنو إن دريركين اللي سكدوا ومهم عندنا الله اللي سكوا حلين إلهي كسكو ربي سبحانه وتعالى قرب كينا وايو إذن قدر ما وضان حقدرنا ما وضان عندنا كم يدين دولين ديجان كم يدين دولين ميل لما يدين تجين إذا كان لدي مركين استفاء عن حق ويان لكن رناهنتي نحنتي أن كنا حمانتا بوانك هذا الجامع runtii ma garan karo waxaan ku hadlay runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u bareeyaa rabbi jannada ha geeyo ana u naxariisto mar unba insha Allah xaajadan dhamaan doontaa mar unbay dhamaan doontaa hadii Ilaahay yiraahdo siyaasadda socotana insha Allah mar bay dhamaanaysaa siyaasadan kale ee hadda reerahan ay isku dilayaan idinka taa idinma khusayso waxyaabaha badan aan ka yaaba hadda miidiyahan ka arkay waxa weeyaan badanaa dagaalo soo cusboonaaday iyagana Allah kala qaboojiyo dad muslimiina dagaalkooda lama baahna laakiin haddii dhankooda ay haystaan oo isdilayaan ina Ilaahay u barino un bay noqonaysaa dad islaamayno wali nahay oo marnaba islaam dhiigooda kuma farxayno dad muslimiin dhiigooda kuma farxayno balse haddii iyaga dhexdooda noqoto waa tooda iyada taas khusaysa yani ka garxajis iyo waxaan sheegayaa Muuse iyo waxa ka dhaxeeya annaga taayadana khusaysa taayadana shaqo ku leenahay inaan taayada iska celino iskaga difaacno oo dhulkeena iyo maalkeena iyo gurigeena aan ka difaacno xaq baan u leenahay hadii reer Khaatumo marka siyaasadan la iska dhigaya midna cadow isaga ka dhigay midna saaxiib isaga ka dhigayo waa siyaasadan isir malaha reer Khaatumo lagu soo dabaya waana siyaasad ay isla ogyihiin
garxaajis laftirkooda iyo nimanka la yidhaahdo madaxweynaha uu ka dhashay waa arrin yaroo la isla ogyahay labada qof saddexda qof ee ka dhintana raalli baa laga yahay si lagu soo galo la isaga dhigo xabiib ay qaar isaga ka dhigaan oo khaatumo isaga dhigaan xabiib inay leeyihiin kadibna ay deegaankaagii iyo dalkaagii yidhaahdaan annagu soomaalina baanu ku soo noqono waa kuwa inta badan calanka buluugga qaatay haddii garxaajis calanka buluugga 230 sannadood ka hor bay naceen maanta waxay u qaateen dee waa siyaasad unbaa ka dambaysa qofkii caqli le waa fahmaya siyaasaddaasna siyaasad daacada maaha marka reer khaatumo mar walba dugtoonaada dadku wixii dee walaaltinimo iyo ehelnimo idii soo dhawaysanayay soo dhawaysta laakiin siyaasaddiinu mar kastaba ayay ku milmin siyaasadaha kale mar walba taxadara waxa weeyaan dadkani haddii ay ogol yihiin qaarkood maanta garxaajis waxay leeyihiin khaatumaanu ogolnay khaatumaanu wax la nahay khaatumaanu wax la qaybsanaynaa berina waa laga yaabaa inay idin yidhaahdaan waxaan idin qaybsana waa idin iman laynaa markaa siyaasadda meeshaasi ku jirta 2 sannadood kahor bay wax nala qaybsan lahaayeen oo iman lahaayeen laakiin meeshaasi daacad maaha waa waxaan daacad ahayn markaa dadkiiba saa lagu laynayaa arrintii baa lagu qaboojinayaa tooda dagaalkooda tii kale ee khaatumo ayaa lagu baabi'inayaa waa lagu daminayaa waa arrin lagu shuuqinayo weeyaan siyaasaddii ee khaatumo marka aad iyo aad inaad taxadirtaan oo ogaataan oo hawshiinii iyo halgankiinii halkii aad ka wadaan waayo maalin walba wax dhimanaya waa inaga waa dadkeena wax dhimanaya marka in halkii la sii wado siyaasadda iyaga u dhaxaysa annaga taayada inay khaas noqoto oo noo sii socoto mar haddii halganka lagu talagalay in la dhammaystiro wanaagsantahay wuxuu inay A to Z bay leedahay waxay leedahay bilow iyo dhammaad bay leedahay wixii halganka ahaa ee bilowga ah iyo dhiiggii bilaashka ahaa ee qubtay dhiiggii macnaha qubtay yaan bilaash laga dhigin dhiig bilaash ma ahayn ee garaale ahaada dhiiggii qubtay yuuna bilaash noqonin waayo ilaa iminku qubanaya maantaba waxaan ka tacsiyadeynayaa abwaankeenii weynaa ee jaamac keliye ayaan ka tacsiyadeynayaa intaa iyo inka badan way soo socotaa haddii aan laga tabaabushaysanin oo laga fekerin aayaha dambe ee muxuu ahaa deegaanka iyo dadkani leeyihiin marka madaxda ama garaadada laftirkooda waxaan leeyahay ha ku milmina siyaasadda ka dhaxaysa Somaliland iyo garxaajis iyo muuse waxa ka dhaxeeya iyaga qusaysa idinku tiina wata deegaankiina waxba kama harin insha Allah gooja cadda iyo wax meelaha la sheegayo waxba kama harin difaaci inaad halkiina ka sii wadaan cid kalena la isku helayn yani dadka tolka harti ama ha noqdeen ama daarood ha noqdeen ama cid kale ha noqoto ama Soomaali weyn ba ha noqoto wixii ku hiirinaya way ku hiirinayaan wixii xaq arkaya arrintana waa arrin xaqa waa gardarada lagu soo doontay waa deegaankooda loogu yimid waa la wada arkay in meeshan gardara ka socoto marka qofkii ilaahay dartii ku caawinaya ee ku taageerayana waa walkama la soo dhaweystaa kii kalena dee waxa weeyaan wuu sinatiraya marka inaad ka socotaan baa wanaagsan maanta haddii jaamac keliya la dilay arrintaasi arrin waa inay yeelataa dhammaad waa inay yeelataa calaa kulli xaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa walaashin aamin alaka ofishiyaal nabadeed